odayaasha beesha bahar same iyo cuqaal bay isugu jira cabdiqani cabdilaahi maxamed uu wakiil nooga yahay xubinimada baarlamaanka Puntland haddii waanu isku wada raacsannahay waa nin qaban kara hawsha waa nin ku filan waanu garab taaganahay heliyo hooba nin kaga munaasabsan oo ama kaga macquulsan oo xubinimada la geyn lahaana ma jiro waxaanu leenahay war dadkan iska ordayay isbarbaryaaca dad aan qaban karin ummadana matali karin ma aha in lagu jujuubo waxa aanu anagu leenahay cid waliba hadalka ha ogaato hana ka fiirsato dadku qofka uu wato bulshadu wadato ama ummaddu wadato ama taageersan tahay ee macquulka ah ee waxtarka ah ayuunba dee wax qabad leh marka waxaan ku celcelinaynaa arinta ha laga fiirsado ninkaas wakiila ninkaas aanu u dooranay isaga ayaa noo qabanaya maxamuud bulaale karamida odayaasha beesha bahar same sida odayaasha iga horeeyay cuqaasha iyo isugu jira maxaan ku raadada beeleedadu ay yiraahdeen xubintii Puntland ee baarlamaanka waxaan u wakiilanay oo dooranay cabdiqani cabdilaahi maxamed mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u dooranay cabdiqani cabdilaahi maxamed waana soo soo qaybgalayaasha odayaasha cuqaasha dhalinyarada jirkayga jirayd wuxuu ku saabsan yahay maanta waxaan ku taageeranaa oo aan la garab taaganahay cabdiqani cabdilaahi maxamed ama cabdiqani makhtal sidii loo yaqaanaba ahna hadeerna maayirka gobolka Sool ee Puntland waxaan leenahay Puntland hadii la rabo inaynu wax wada yeelashadeenu sii socoto oo aynu wada shaqaynteenu sii socoto dhammaan adaanu nahay odayaasha dhalinyarada cuqaasha halkan fadhida ee bahar same waxaan isku raacsanahay in xildhibaanka iyagu noo metelaya golaha baarlamaanka 5 sano ama 4 sano inuu yahay cabdiqani cabdilaahi maxamed waxaan leenahay Puntland haday tahay gudida doorashada haday tahay oday dhaqameedada haday tahay madaxweynaha hadan talada haya dadku shacabku qofkay wataan waa in loo tixgeliyaa anagu hadaan nahay beesha bahar same ninkaas aan wadanaa haday cuqaal tahay haday dhalinyaro tahay haday qaybaha bulshada dhan tahay annaga xildhibaanka iyaga noo metelaya waa cabdiqani cabdilaahi maxamed xafladan abaabulan sida fiican loo agaasimay ay fadhidaan maaragtay dadka dhamaantiin rag dadkiina fadhiya waa salaamantiin hada cuqaaltiin hada oriyaaltiin hada dad maaragtay teenay maaragtay qodan dheer garadka dhamaantiin waa salaamantiin xafladan agaasimo waxaan ku taageereynaa cabdiqani makhtal ayaan ku taageereynaa inuu ka noqdo Puntland bahar same uga noqdo xildhibaanka u fadhiya asagoo aan maanta ku cusbeen cabdiqani in maaragtay Puntland iyo garowga toona ama bahar same gudaheeda ama dadka xagga jooga laftiisaba aan ku cusbeen inuu hore u shaqayn jiray yahay ma yar noqday hawlo kala badan soo noqday haddana waxaan ku taageersanahay inuu noqdo ninka baarlamaanka ka tirsan ee bahar same marka aan bahar same haato ama maaragtay gudida doorashada maaragtay kala xulaas haato way ka fiirsadaan wixii wax qaban kara oo ay u fiirsadaan qofaan lacag lagu riixayn qofaan siyaasad lagu riixayn qof wax qaban kara way inay arkaan marka mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu raayaan waxaan qabaa ninkaas inuu maaragtay aan ku taageersanahay inuu maaragtay yahay ninka xildhibaanka baarsoon fadhiya halka shirbeeleed bahar same isaguna nimi xaflad aan ku maamuusayno cabdiqani cabdilaahi maxamed shirkaas oo aan ku fadhino cuqaal oday beeleedyo iyo waxgarad iyo guurti iyo dhalinyarada iyo bulsho rayidka kamid ah waxaanu taageereynaa inuu maamulka Puntland nooga noqdo cabdiqani cabdilaahi maxamed xaashi oo ah maayarka hadda jooga taas waa taa gudida doorashada ee maamulka Puntland waxaanu doonaynaa inay si dhaba wax u fiiriso dadka ama isdabarka ama iska orda waa inay ka fiirsataa waa inay u fiirsataa yaa wax qaban kara yaa wax tari kara yaa wax keeni kara waxaanu doonaynaa
oo rabno halka u fadhina inaanu noo noqdo cabdiqani cabdilaahi maxamed xildhibaanka Puntland noo fadhiya anagoo ku taageersan dhammaanna waanu idin salaamaynaa guddida doorashada iyo bulshada rayidka ah